halkani waddanka TV qodobada aad ku daawan doontaan warkayagana waxa kamida ra'iisul wasaare Roble iyo wasiirka amniga ee dhawaan uu magacaabay khilaaf xooggan ayaa soo dhexgalay kadib markii ra'iisul wasaare uu qaaday tallaabo uu arkay mid muhiim ah Soomaaliland waxay si lama filaan uga hadashay doorashada Soomaaliya iyadoo qodobo dhowr ah oo liddi ku ah doorashada hoosta ka xariiqday midowga musharaxiinta mas'uuliyiin ka tirsan waxay si la yaab leh uga falceliyeen hadal ka soo yeeray gudoomiye ku-xigeenka amniga ee siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yare oo sheegay inuu qaadayo tallaabooyin dhowr ah oo ay ka caroodeen Itoobiyana dagaalada ka socda maalin ka dambaysa way ka sii darayaan waxaana xilligan dhalinyaradii ugu badnayd oo Itoobiyana ay qoranayaan ciidamada waddanka Itoobiya qodobadaas ayaa daawan doontaan aan ku bilaabo ra'iisul wasaare Roble iyo wasiirka amniga ee dhawaan uu magacaabay waxa soo kala dhexgalay khilaaf xooggan oo la sheegay inuu ka dhashay kadib markii Roble uu qaaday tallaabo muhiim u arkay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo wasiirkiisa amniga ayaa la sheegay in maalmihii la soo dhaafay aysan lahayn xiriir aad u sii wanaagsan isla markaana xiriirkoodu uba cirka isku sii shareeray khilaafkuna uu hawada u baxay kadib markii uu ra'iisul wasaaruhu qaaday tallaabo uu arkay mid muhiim ah ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa la sheegay in dhowr jeer wasiirka amniga uu ku amray inuusan qaadi karin tallaabo uusan kala tashan isagoo ka dalbaday in wasiirka ay muhiim ay tahay xafiiska ra'iisul wasaaraha inuu kala tashado dhammaanba tallaabooyinka uu qaadayo ra'iisul wasaare Roble ayaa wax u arkaa hadda in siyaasado kala duwan ay xafiiskiisa ku foogan yihiin isla markaana culeysyo hor leh ayuu ra'iisul wasaaruhu la kulmaya taasina waxay sababtay inuu ka dalbado dhammaanba xubnaha golihiisa wasiirada gaar ahaan kuwa isaga ka agdhow inaysan qaadin tallaabooyin aan muhiim ahayn isla markaana inta badan tallaabooyinka ay qaadayaan ay noqdaan kuwa lagala tashtay xafiiska ra'iisul wasaaraha wasiirka amniga ayaa loo arkaa inuu yahay mas'uul si rasmi ah uga tirsan mucaaradka isla markaana tallaabo walba oo qaadaya dhankaasi ka eegaya Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka cusub ee amniga ee uu magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu ka tirsan yahay xisbiga mucaaradka ee uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud ee loo yaqaan UDP waxaana taasi ay sababtay in inta badan tallaabooyinka uu qaaday uu ku jaangooyo waxyaabaha lidda ku afila Soomaaliya iyo waxyaabaha sidoo kale dhanka mucaaradka oo janjeera wuxuu dhawaan xafiiskiisa ku qaabilay hooyo Qaali Maxamuud Guleed oo ah hooyada dhashay Ikraan Tahliil Farax oo asar gaalada ilaa iyo hadda la laayahay ee ay ka tirsaneed hay'adda nabadsuguda iyo sirdoonka qaranka waxaana uu sheegay inuu u ogolaaday banaanbaxyo ay ka dhigaan iyada iyo ehelkeedu magaalada Muqdisho si cadaalad loogu raadiyo Ikraan Tahliil Farax balse arintaasi waxa ka soo horjeestay isla markaana ganafka ku dhuftay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere oo loo yaqaan Cali Yare isla markaana loo arkay inuu yahay siyaasi aad ugu dhow villa Soomaaliya wasiirka amniga ayaan dhag jala qusin tallaabada waxaana Cali Yare dhankiisa uu sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in la carqaladeeyo amniga ka jira gobolka Banaadir gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare ayaa waxa uu sheegay in amniga ka jira gobolka Banaadir la isku halayn karo xilligan isla markaana banaanbaxyada loo dalbanayo uu yahay mid waqti dheer qaatay ayna ka shaqeeyeen xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir waxa uu sheegay inaysan yeelin maamulku si dhayal ah ama si ciyaar in ammaanka magaalada caasimadda faraha looga bixiyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in uusan aqbali doonin war aan ka soo bixin wasiirkii hore ee amniga ee uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble xilka ka qaaday Xasan Xundubay waxa uu sheegay in Xasan Xundubay Jimcaale uu aqoonsan yahay wasiirka amniga gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya taasi ayaa hadal hayn aad u badan dhalisay isla markaana waxa la hadal hayay saacadihii la soo dhaafay labadan mas'uul hadaladan ka soo kala baxay wasiirka amniga ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in marnaba uusan aqbali doonin in hooska xukuumaddiisa lagu dulmiyo hooyo Qaali iyo dhammaanba Soomaalida kale isagoo ka dalbaday in banaanbaxaasi uu noqdo mid nabadgelyo waxa uu sidoo kale sheegay in tallaabo cad ay qaadi doonto wasaaradda amniga gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya haddii ay dhacdo in laga hortago banaanbaxa amaba la dhibaateeyo dadka banaanbaxa ka dhigaya gudaha gobolka Banaadir taas beddelkeeda Cali Yare oo ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir ayaa waxa uu ku dooday marnaba inaysan aqbali doonin in meesha laga saaro amniga iyo kala dambeynta magaalada caasimadda ah Muqdisho waxa uu sheegay in muhiim aysan ahayn banaanbax ka dhaca gudaha gobolka Banaadir waxay labada mas'uul
isugu hanjabeen in ay wax ka qaban doonaan banaanbaxaasi. Wasiirka amniga waxa uu sheegay in uu tallaabo cad ka qaadi doono cid walba oo isku dayda inay banaanbaxaasi joojiso ama ka hortagto. Sidoo kale Cali Cabdi Wardheere ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inuu ka hortagi doono banaanbaxaasi isla markaana maamulka gobolka Banaadir uusan ogeyn wax banaanbax oo la fasaxay aysan ka shaqeyn doonin banaanbaxaasi iyo sugidda amnigiisa. Taas bedelkeedna ay gacan ula tagi doonaan cid walba oo isku dayda banaanbax aan loo dhamayn ama banaanbax aan toos ahayn oo aan soo marin xafiisyada kala duwan ee maamulka gobolka Banaadir in ay ku qabtaan magaalada caasimadda ah Muqdisho. Tallaabadan uu qaadayo Cali Yare ayaa waxayna u muuqataa inuu kaga hortagayo banaanbax ay doonayaan in ay dhigaan ehelka Ikraan Tahliil Faarax, waxaana banaanbaxaasi la sheegay inay dalbatay hooyada dhashay Ikraan Tahliil oo ah gabadha ilaa iyo hadda lala yahay. Somaliland si lama filaan ah ayay uga hadashay doorashada Soomaaliya, waxayna hoosta ka xariiqday qodobo dhowr ah oo meesha ka saaraya dowladnimada Soomaaliya. Somaliland ayaa sheegtay inaysan ka mid ahayn dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana aysan jirin cid u matasha dowladda dhexe ee dalka, iyagoo tilmaamay dowladdaasi in ay ka bixeen dhowr iyo 30 sano ka hor. Warqad cara leh ayay Somaliland soo saartay isla markaana waxay sheegtay dhaleecaysayna hadal ka soo yeeray xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ka gudoomiyaha aqalka sare ee ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka warqadaha ay ku qornaayeen liiska musharaxiinta aqalka sare ee Somaliland. liiskan ayaa waxa lagu sheegay inay yihiin liiska musharaxiinta aqalka sare ee Somaliland, iyadoo sidoo kale la sheegay in ay xubnaha yihiin kuwa sida rasmiga u matalaya gobolada waqooyi kuna tartami doona magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in liiskani ay yihiin liiska dhanka Somaliland ee dowladda federaalka Soomaaliya, taasi oo ka dhigan in Somaliland ay la mid tahay maamul goboleedyada dalka ee Puntland, Jubbaland, Galmudug ama Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle. taasi waxay aad uga caraysay madaxda ugu sareysa Somaliland ee fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa, waxayna dhaleecayn u jeediyeen xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Waxay tilmaameen xafiiska ra'iisul wasaaruhu in marnaba uusan soo hadal qaadin Somaliland iyo gooni istaageeda ama qarnimadeeda, taas bedelkeedna uu la meel dhigay maamulada yaryar ee dowladda federaalka Soomaaliya hoostaga. waxay sidoo kale sheegeen inay dacwad rasmi ah u gudbin doonaan beesha caalamka oo ku aadan xafiiska ra'iisul wasaare Roble, isla markaana ay doonayaan in si toos ah dhaqaalaha loogu talagalay doorashada kala duwan ee aqalada kala duwan ee aqalka sare iyo golaha shacabka ee sharci dejinta dalka ee Somaliland loogu talagalay in beesha caalamku ay xayirto, isla markaana Somaliland dhaqaalahaasi aysan waxba ka gelin. Somaliland ayaa sheegtay in beesha caalamka ay ka dalbanayso in dhaqaalaha loogu talagalay in lagu taageero doorashooyinkan gaar ahaan kuwa Somaliland ay muhiim tahay in lagu taageero dhinacyada kale ee siyaasadda ee Somaliland, iyagoo ka dalbaday beesha caalamka in dhaqaalahaasi la xayiro isla markaana loogu deeqo shacabka daruufaysan ee reer Somaliland. mas'uuliyiin ka tirsan midowga musharaxiinta ayaa siyaabo kala duwan waxay uga jawaabeen hadal ka soo yeeray gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir ayaa si adag wax uga soo horjeestay war ka soo baxay wasaaradda amniga ee gudaha Soomaaliya, gaar ahaan wasiirka uu dhawaan magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Yare oo xilligan ku magacaaban inuu yahay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in marnaba banaanbax uu wasiirku amnigu fasaxay ka dhici karin magaalada Muqdisho. waxa uu sidoo kale tilmaamay in wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in wasiirkan uu hore uga tirsanaa xafiiskiisa isla markaana 10 sano ka hor uu aqoon fiican u leeyahay xafiiskiisa uu ka shaqeyn jiray. waxa uu sidoo kale ka digay in tallaabooyin laga soo abaabulay xafiiska ra'iisul wasaare Roble lagu carqaladeeyo amniga guud ee maamulka gobolka Banaadir. taasi waxa uu ku sheegay sidoo kale isla markaana ku eedeeyay in wasiirkan uu ka socdo xubnaha mucaaradka isla markaana ay muhiim tahay in uu ka shaqeeyo sidii meesha looga saari lahaa wax walba oo walaac ku keeni kara maamulka gobolka Banaadir iyo guud ahaan shacabka degan gobolka Banaadir. waxa uu sidoo kale ku eedeeyay wasiirka dhawaan la magacaabay amniga Soomaaliya inuu ka socdo dhanka mucaaradka isla markaana uu doonayo inuu carqaladeeyo
amniga guud ee laga shaqeeyay isla markaana tacabka badan la geliyay sanadihii la soo dhaafay isagoo ku eedeeyay in xubno ka tirsan mucaaradku ay gadaal ka soo riixayaan hadalkaasi wuxuu ku leeyahay xubno fara badan oo ka tirsan midowga musharaxiinta ee mucaaradka iyo sidoo kale xubnaha kale ee xildhibaanada iyo aqalka sare waa kamid ahaa ee ku jiray ama kamid ah xisbiyada mucaaradka ku ah dawladda federaalka Soomaaliya waxaana saacadihii la soo dhaafay aad loo hadalhayay hadallo kala duwan oo ka soo kala yeeray Axmed Macalin Fiqi oo ah wasiirka amniga gudaha ee dawlad goboleedka Galmudug xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya haddana ama musharax xildhibaan iyo sidoo kale Mahad Maxamed Salaad oo isna ah xildhibaanada Galmudug ku matala dawladda federaalka Soomaaliya waxayna si adag u dhaleecaynayeen Cali Yar Cali waxa sidoo kale la ogsoon yahay in Mahad Salaad iyo Cali Yare ay ku tartami doonaan kursiga uu ku fadhiyo Mahad Salaad oo yaala magaalada Dhuusamareeb isla markaana loolan adag xilligan uu labadaasi mas'uul ka dhaxeeyo ayna doonayaan in meesha ay ka saaraan Cali Yare iyo sidoo kale tartanka kursigaasi balse hadda waxa uu muuqdaa in Cali Yare uu doonayo si toos ah inuu u xagsado kursigaasi kana shaqeeyo sidii meesha looga saar lahaa wasiirka dhawaangalka ah ee amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya Etoobiyana dagaalada ka dhacaya waxay u muuqdaan kuwa xarga goostay ciidamadii ugu badnaa ayaa dhalinyaro xilligan qoranayaan gudaha wadanka Itoobiya waxayna doonayaan dhalinyaradan inay ku biiraan ciidamada wadanka Itoobiya gobolka Amxaarada ayaa dagaalada ugu xoogan ka socdaan walow guud ahaanba dawladda deegaanada Itoobiya ay dagaalada ku fideen hol cuna gaaray haddana meesha inta badan isha lagu hayo ciidamada ugu badan la geynayo dagaalada ugu adagna ka socdaan waa gobolka Amxaarada dhalinyaro aad u fara badan ayaana aagaas ciidamada ka qoranaya waxaana dhalinyaradaasi loo isticmaalaya qaab xaab ahaan iyadoo horgeeniyo xogaga Tigray oo muuqda xilligan inay haystaan hubka casrisan kan Itoobiya warka wadanka TV-na waa intaasi nabadgelyo